waxaan idinkaga mahad celinaa runtii aragtiyaha wanaagsan ee aad halkan kusoo bandhigteen. intaa kadib dabcan waxaad ula jeedaa hafilaya warqadda kasoo baxday African Union maanta oo dee runtii aan sida dad badan ba ay qabaan aan aaminsanahay warqad si kale loo influence gareeyay inay tahay. waxaa waddankada lagu laabto arrimaha la xiriira Madeira iyo madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday Farmaajo in muddo ahba waxaa farta lagu fiiqay waxa loogu talagalay inay ka shaqeeyaan labadaba. ma aha runtii doodahaasi aragtiyahaasi wax hadda bilowday dhowrkii sane ee ugu dambeysaba waa arrin aad loo hadal hayay oo guud ahaan ay qabeen dadka indhergaradka Soomaaliyeed. si dhawaan ula soconay inta soo jeer waxaa laga gudbiyay cabashooyin kala duwan hadday noqon lahaaday dadka stakeholderska siyaasadeed ee Soomaalida ah ama guud ahaan indhergaradka Soomaaliyeed waxay ka gudbiyeen dhowr jeer cabashooyin kala duwan. waxaan filayaa sidoo kale muddo laga joogo 3 bilood waxaa cabasho ka gudbiyey si furan ugu gudbiyey oo dee aan public ahayn laakiin toos ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa wuxuu u gudbiyey xafiiska midowga Afrika uu uga dalbaday inay ku celiyaan ninkan oo dalka uga qaadaan. nasiib darro ma dhicin. waxay codsadeen ilaa uu ka dhamaanayo muddo wax loo yaqaano roll over period oo ahayday maadaama AMISOM mandate-koogu dhamaaday 31 December ayaa waxaa la yidhi muddo 3 bilood ah lagu daraa iyadoon status-koogii la qeexin ama mandate-ka cusub ee AMISOM aan la qeexin ayaa muddaxileedkii dhamaaday. marka waxaa dhacday waxay dalbadeen muddo 3 bilood ah inta laga dhamaystirayo waa muddada uu socdo process-kan loo guuray AMISOM oo loo guuray ADMIS. muddaxileedkii uu dhamaaday dabcan sababaha cabashada hore loo gudbi jiray ama aragtiyaha kala duwan looga qabay oo mar walba uun farta loogu fiiqi jiray oo loogu xamayn jiray Madeira inuu ka shaqeeyo waxaan shaqadiisa ahayn. dabcan Soomaaliya safiirra kala duwan aa jooga. xalan waxaa degan dhowr iyo 10 safaaradood degan lagumana tilmaamo tuhun noocaas oo kale aan lagama qabo. marka sababta dee wax uun iska caday ahayd dabcan ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan adduunkan waa u cadaatay oo waxaad la wada socotaan wixii yani codkii laga duubay la sii daayay ambassador Madeira ayaa wax badan ku cadaa wixii uu ka shaqayn jiray iyo dee wax badan oo kalena way jiraan oo runtii aan weli aan sababliga dadka intooda badan ay u helin laakiin inagu aan la wada socon. taa waxaa daliil u sii ah oo sii cadaysay difaaci indhalaanta ahaa ee Farmaajo isku dayay inuu difaaco Madeira iyo khaladaadkiisii iyo wixii foosha xumaya uga shaqayn jiray ama uu ku howlanaa in muddo ah. markaad eegto maanta warqadda kasoo baxday waxaan aaminsanahay inay tahay warqad aad loo influence gareeyay inay tahay ujeedada marka waxaan ula jeedaa dabcan ujeedka ay ifila Soomaaliya u influence gareysa warqadda noocan oo kale inay kasoo baxdo midowga Afrika waxay tahay inay iska hor keenaan shacabka iyo missionka u jooga nabad ilaalinta ama guud ahaan African Union missionkooga Soomaaliya ku sugan. waxaan aad u dhiirigelinayaa inaan dadkeena ka wacyi gelino ahdaaftaas gurrucan inayna meel marin. sax ma ahan marka loo eego ciidamada African Union ka socda ee Soomaaliya jooga runtii waxaad wanaagsanay ay qabteen xilli adagay shacabka Soomaaliya dowladda Soomaaliya isbarbar istaageen laakiin madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa nin aaminsan sidiisaba inuu dalkan fila Soomaaliya dhex fadhiyo haddii ay noqoto inuu ka tago fila Soomaaliya uu ka fursan waayeen inuu waxba ka harin. marka waa nin ka fikiraya ama jeclaan lahaa hadduusan waddanka sii joogi karin oo sidaas sifada sharci darrada ku sii joogi karin waa nin jeclaan lahaa dalkan inuu gacanta u geliyo al-shabaab. waxa uu ka fikirayo oo waxyaabahan oo dhan u maleegayana waxa waaye oo keliya in ay isku dhacaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo kacdoon ka dhan ah ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee ka socda midowga Afrika iyo shacabka Soomaaliyeed. laakiin innaga haddaynu nahay mas-uuliyiinta Soomaaliyeed waxay nala gudboon inaan shacabkeena ayaan marin dabinka ama ku dhicin dabinka ay la doonayaan kooxda waqtigoogu dhamaaday oo dee aan dal iyo dadtoona u naxayn oo undanahooga gaarka ah ka shaqeeya har iyo habeenba. hal arrin waa idin xaqiijina oo ma qabo inaad ka walwashaan. Madeira oo qofka la garanaya ah ra-iisul wasaarihii dalka oo PhD dalka Soomaaliya kusoo noqonaya iyo ambassador kasii shaqaynaya wax dhacaya maahan. iyaguna waa garan karaan waadna arki doontaan haddayan noqonba saacadaha soo socda maalmaha soo socda sheekadaas waa iska dhamaanaysaa oo iyana waa gifaab garaynayaan.
warqadaha hadda lasoo saaro maanta ujeedka ugu muhiimsan waxay tahay kacdoonkaasi inay ka dhasho haddii taa hirgeli weydo oo ay dareemaan mas-uuliyiinta soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed inay garteen dabinkan lala doonayo in loo dhigo ay ku dhacaan ummadda soomaaliyeed waxaan aaminsanahay jabtarkaasi waa iska soo xirmaa madeerana mustaqbalkiisu ku cayaaray muddadii yareeda oo koobneedo oo wixii uu magaranaysaa lalooshii uu si yara qaadan jiray waktigaa uu dhammaaday wax badan marka ma qabo in laga walwalo laakiin waxaan idin xaqiijinaya weli waxaa jirta khataro aad u ballaaran oo ku wajahan runtii maalmaha soo socda kusoo wajahan dalka soomaaliya oo aan dhihi karo haddii yaba saacada ahayn maalmo gudahood waxaa waddanka soomaaliya kusoo wajahan khataro aad u ballaaran sababta aan saas u leeyahay hoostaan ka xariiqayaa maxamed cabdullaahi farmaajo kalsooni ma qabo uu ku aado teendhada uu doorasho ku galo sidaasoo kalene ma lahan gatiskaas ama in uu aqbalo in la difiidgareeyey ama uu sifa sharci iyo sharci darro atoona ku joogi waayo fila soomaaliya uu gifaabgareeyo uu isaga huleelo taana kuma dhiirin karo ma samayn karo taa dhanka doorashadana waa ka quusatiin uu ka joogaa marka ninkan suunba isku qarxi doonaa wuxuunba uu ka fikiri doonaa hadda ma doonaya inaan dhaho ama detailskeeda galo ABCD ya laga yaaba inuu sameeyo laakiin waxaan idin xaqiijinayaa inaan aaminsannahay dalka soomaaliya inay kusoo wajahan yihiin khataro aad u ballaaran haddii aan saacado ahayna maalmo gudahooda anugu waxaan qabaa dalka soomaaliya haddii ay suurto gasho oo xildhibaanada la doortay ay dhaaftaan waxaan aaminsanahay 90% transitionkii si nabadgelyo ayuu ku dhacay laakiin haddii ay dhici weydo maalinta loo asteeyey ee 14 bishan aynu ku jirnaa oo aan filayo inay naga xigaanba maalmo aad u kooban oo 4-3 cisho ah taa hadday dhici weydo waxaan aaminsanahay inaan ku jirno khatar aad u ballaaran waa rajaynayaa inayaan dhicin laakiin haddana dee mas-uuliyadda dalka naga saaran shacabka soomaaliyeed waxa soconaya iyo waxa jira inaan u sheegno oo dalkan inagu mas-uuliyiin u nahay laakiin milkiilayaasha dalkan iyo dowladnimada soomaaliya waa shacabka soomaaliyeed inay ogaadaan wax soconaya iyo dabinada loo maleegayana xaqay u leeyihiin marka waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo shacabka soomaaliyeedna u bayaaniyo inay jirto khatar aad u ballaaran oo kusoo wajahan masiirka ummadda soomaaliyeed haddii aan ummadda soomaaliyeed hal dhinac uga soo wada jeesan oo dadkan ma garanaysaa waxba aan ka duwanayn ismiidaamiyaasha suunka inta isku soo xiro isqarxinaya waxba aan ka duwanayn ee aan dhinac uga soo wada jeesanne waxaan aaminsanahay inaan waddo highway ah oo yutankeedu aad u fogyaha kori doono waa mahadsantiin dabcan dalka mas-uuliyadda naga saaran waa ku qasbannahay inaan u diyaar garowno waana aaminsannahay inay runtii aynu dadaali doono shacabka soomaaliyeedna haddaba siday inoo garab taagan yihiin inoo garab istaagi doonaan dabcan dowladnimada iyo meesha hadda la joogane wax yani dhib aad u fara badan ayaa laga soo maray dadka soomaaliyeed intooda badanna waa ay gara karaan mana aqbalayaan mana ogolaanayaan si fudud inay ku lumiyaan yani inaguna waa xogogaalna waa u nahay waana u diyaar garowna dabcan mas-uuliyadda naga saaran oo iskama daawanayno walaal marka laga hadlayo basecamka wax periodically lagu sameeyo lockdownka sidaas oo kale waayo dabcan hadda la socotaan koodii bisha oo kale sidaas oo kale la sameeyey markii la dareemo waxyaaba la xiriira in ay dhici karto security breaches inay jiraan oo kale usual waa la sameeyaa uma arka waxaa hadda wax weyn leeyihiin ama thread saas u weyn oo kale noogama muuqdo waana dadka ka shaqeeya ee technicalka iyo dadka inaga noo qaabilsan howlaha amniga ee technicalka si dhow wada xiriiraan wax hadda issue ahoo aynu ka dareemayna haba yaraatee ma jiraan actually mar kale aan ku celinahay African Union qaybta civilian componentiga ama qaybta u qaabilsan arrimaha civilianka iyo siyaasadda mooye qaybta ciidamada haba yaraatee wax barbaraamaan isku qabno lama arko waan runtii ammaanaynaa waa bogaadinaynaa sacrificeka iyo dadaalka ay sameeyeen oo dee ay ku garab istaageen guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan hay-adaha amniga marka haba yaraatee wax isbedela ama wax barbaraan oo ka dhex jiraayo ma jiraan walaal ma qabo inaan fursad luminay haddaad dib u fiirisaan communiquega ama resolutionka soo baxay waxaa ku cad admis inuu yahay new mission ay tahayna inay ay hogaamiyaan new leadership clearly divided waaye laakiin arrinkaas waxaa compromise gareeyay oo ka baxay oo roorkooga gabay African Union